إذاعة الله TV إلهي بركة إذاعة كي بقى عافماد الله سيو كي حلا اسكو دباتيسين حلاها الله اسو سخيرو كي حلا لا حلا سخيرنا خير قبا الله سيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضوء يا الجديين بمكسر توكتان نبتقلين بين حريسيس ومتجار كي تجود أنتم بجود كنا هذا نسود هذا ومركلة وحنا شوقنا خويدي صوماليات ويل كذا عرض أسلت على إسناعين وطمع وسين فرح برة وكوحنا وصلنا يسكرية وعرض كذا يدو كل يوم حنا وصلنا يسوع ومقال كي صدحات يعني نقول يدا كده حضورنا وحكوية على حافظة إسلي المجال نيروبي تاريخ الله من هذا وحوي بشي شنات لبيه توين كذي لبضع كون يلا بعتنكا أما لبي إبر أنا يخرج سينا إذا الله يا قبل الصوماليات ومحسنين وجيسين أي رأي ويري العقبة رمنا نكوري شنو ويلا مقال كتسو دوطي قبلها واحد جامين إيسا مريم معلم وكمية قبلها هلكن فردية المقال كواركتان waxaan rabnaa inaan horta marka hore si guud ugu ducayno wiilkan waa 20 jir laba jirka leeg 20 jir laba jirka ka miisaan fudud weey wuu ururay wuu soo ururay waxaan noqotay sariirkeed buu ku ururay furaashka inuu saaran yahay in kala xataa ma dareemiyo sida wax kale oo qofkii dareenkiisu ee muslimiin iyarna kaga jirto markuu arko muuqaalkan inuu qiiroonayaan rabaa kuwii hore dadkii arkay aad bay uga soo jawaabeen kuwa duca soo diray iyo kuwa lacag soo diray inta way ahaayeen kana kuwii muddo socdaa gurmadkii wali wuu socdaa wuxuu faanoole fari kama qodna meel wacan bay maraysaa bilow wanaagsan baan alxamdulillaah rabbil caalamiin marinayna hawsha dhakhtar dabadeed bay u baahan tahay qabtan adduunka ka dhacday waxaan maqli jiray qabtii muqdisho tan hadda adduunka ka dhacday qabta ee adduunkii uu rusay ee xanuun weeye moogtay dadkoo dhan uu ka baqayo wuxuu horta ilaahay ka caafiyo wixii ka baqayana ilaahay ka badbaadiyo haddii adduunku furmo inay dhakhtar meel dhakhtara ay ula socodso ama la aado baan ku tala jiray hadii rabbi suura geliyo idinkuna garabka iyaga tiin saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan rabbi hayda barakeeyo 10kii dhexe ee Ramadaan ayaynu ku jiraa hooyadani way xanuunsanaysaa qudheedu saan muuqaalka horeba ku sheegay waxa laga yaabaa intay dhacdo oo suuxdo ama ay qalashada sad fahmayso inay 24 saac ay mir laato dadka dariska ah ee halkan joogay Soomaaliyeed baa igu warramay iyaduna way ii sheegtay sad muuqaalada hore ku daawateen haddana daawo doontaan xanuunka waxay ka qaaday waa stress bay yiraahdaan qolada fog meelaha fog jooga laakiin isla hadal baan Soomaaliga u aqaan way isla hadashay kadibna kaligeed baa isla shawrtay kadibna garab bay weeyday kadibna kiidee dhalay baa furay baa leeyahay markuu dhashay buu carray baa leeyahay jaani yacdi meel u dhigay anigu warmaayay ugu tii markii ugu horeysay ama muuqaalka hore ka duubay xanuunka ilaahay baa iskala caafimaadkan isaga iskale wax kasta ilaahay laba ka dhigay habeen iyo maalin caafimaad iyo xanuun hurdo iyo soo jeed buuraan iyo caato caro iyo farxad wax kasta walaa ilaahay baa kaligeed inaga la nagu heegay ilaahay caafimaad dadka qaar baa dhaha ilaahay caafimaad ma waayay doorta ilaahay waxa ma waayay qofka saalay moogtay Soomaaliga xogaa ilaahay baa waxa ma waayay ilaahay waxa ma waayay adigu kugu heegaya ama inagu nagu heegaya si guud inaan u gurmano oo ducada iyo dhaqaalaha aan isla garab taagno aad bay wanaagsan tahay aan soo ururiyo waxa la hadal badan hal ma buuxshee gabdhahan aniga way yeedheen waa gabdho Soomaaliyeed walaalahaya ama walaalaheena waxaan hooyadan baan lacag ku wareejinaynaa Maryam baa hogaaminaysa gidigood ay moogtay isma yaqaanaano waxa isu keenay gurmadka isu keenay Maryam oo kamid ah gabdhaha ayaa ila soo xiriiday waxay igu tiri waxaan rabaa inaan hooyada lacag ku wareejino adiguna aad goob joog ka ahaato bal Maryam baan ku wareejinayaa kelmadii oran lahayd iyo hadii bid ma lacagto la wareejinayo way noo dambeynaysaa iyo ducada oran lahayd aan ku wareejinaya bari soo dhow shukran walaalkay iga reeb waa kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan oo codsigeena u filisay waxaan u mahad celinayaa marka hore Allah subhanahu wa ta'ala oo na waafajiyay inaan mar labaad u iimaano Sakariya Cabdullaahi
oo aad u xanuunsan ilaahay subxaana watacaala mahad iskale midda labaad waxaan u mahad celinayaa dhalinyartan idaacadda laac t v ilaahay ha barakeeyo idaacadan waa idaacaddii sababtay inaan meeshaan imaano oo sakariyo xanuunkiisa la qaybsano dhammaan waxaan u mahad celinayaa gabdhaha igala qayb qaatay walaalahii aan u mahad celinayaa dhammaantood qaarkood ila fariisanin ila nasanin ilmahoodii dayaceen guryahoodii kasoo tageen ilaahay kulligood miisaanka xasanaadka u fudeeyo jannatul firdaws a'laan ilaahay subxaanahu wa ta'aala anugu kulmiyo dhamaanteen gabdhaha waxa ku jiro lacagta sadaqaystay gabdha xanuunsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala xanuunka ha ka dulqaado waxa ku jira gabdho awlaad aan haysanin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu weydiinayaa sida ay sakariyo ugu naxariistaan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu naxariisto waxa ku jira sida la ii sheegay gabdho xaasaskooda iyo nimankoodii ay isku dhiban yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaga sawjadkoodaba maslaxa khayr qabta ilaahay dhaxdooda ha dhigo oo awlaadooda ilaahay ha barakeeyo oo guryahooda ilaahay ha barakeeyo oo guryahooda nuur ilaahay ha saaro gabdhaha xanuunsan ilaahay waxaan u weydiinaa ilmaha ka xanuunsan gabar anaga naga mid baa cunug ka xanuunsan yahay sida sakariyo kale ka qalalaay ilaahay waxaan u weydiinayaa inuu ilaahay xanuunka maanta ugu dambeeyay wiilkeeda sida maskiinkaas ugu naxariisatay oo tilaabada u soo qaaday ilaahay waxaan u weydiinaa inuu caafimaad wiilkeeda siiyo gabdhahan dhamaantood qaar baa nagu jira awlaad haysanin ilaahay maanta waxaan u weydiinaa waa bil Ramadaan adinkana aamiinta igu caawiya ilaahay subxaanahu wa ta'aala sida sakariyo ugu naxariistaan ilaahay maanta ugu naxariisto ilaahay awlaad ha siiyo gabdhahaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwa guryahooda iyo nimankooda joogo ilaahay nimankooda iyo ayagaba guryo wanaagsan hooga dhigo oo maslaxa khayr qabta ha dhigo qaar aanan niman qabin baa ku jira ilaahay sawjad saalixiin ha siiyo oo gabdhaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhamaantii wiilasha waan u duceynayaa qof walba oo muslim oo muuqaalkan daawado wallahi aniga waxaan u bixiyay muuqaalkan sakariyo ila qaybsa xanuunka sakariyo oo aan ugu naxariisanayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala anagana berina ugu naxariisto qof walba oo sakariyo u naxariistana ilaahay waxaan u weydiinayaa naxariistiisa inuu ilaahay siiyo qof walba sakariyo ilaahay dartiis u caawiyo ilaahay dhibaatooyinka adduunka ka jiro xanuunada adduunka ka jiro cudurrada adduunka ka jiro ilaahay ha ka badbaadiyo qof walba oo maanta gabar kasta oo maanta ayto ilaahay dartiis maanta gurigeeda uga soo tagtay oo ii imaaday sakariyo inay soo aragto ila soo aragto ilaahay waxa uu weydiinaa tilaabo kasta oo soo qaaday inuu ilaahay barwaaqo iyo janno ugu bedelo subxaanahu wa ta'aala waa bil Ramadaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhamaantiin gabdhaha waa idin mahad celinaya dhamaantiin sida aad hadalkayga u qiimeysaan oo iiga soo jawaabteen oo iila garab istaagteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin garab istaago waxba aniga ma awoodo waxbana ma awoodo laakiin codkayga iyo waxaan awoodaa xoogayga gabdhahan igu caawiye oo ii suurtageliyay oo ugu horeysa ubax ilaahay waxaan weydiinaa jannatul firdaws ilaahay hageeyo dhamaantiin ilaahay jannatul firdaws hageeyo walaashay maryan ayadana u duceynaya dhamaantood gabdhaha waa u wada duceynaya wax walba oo qalbigooda ku jira ilaahay ha siiyo maanta hadana waxaan rabaa inaan lacagta wareejiyo mana ka seexanayna insha Allah ta'ala gargaarkan intaan kuma ekaan doono sakariya sida uu wiilka sheegay ilaa diyaaradda laga saaro meesha roob laga geeyo shaqada waan wadi doonaa insha Allah ta'ala ani walaalahay insha Allah ta'ala imaashadeena tan kuma ekaan doono insha Allah biidnillaahi baari maalinka labaadna intaan ka badan baan la imaan doonaa insha Allah ta'ala ilaa hooyo Zeynab iyo wiilkeeda Jooma Kiyaati ay ka duulaano ma fariisan doona insha Allah ma fariisan doona dhamaanteen walaalaha islaamku i daawanayana waxaan si naxariis looga codsanayaa inay sakariyo u naxariistaan qof walba oo muuqaalkan arka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto sakariyo u naxariisto sakariyo maanta awood ma lahan cudurku waa ka imtixaaman yahay maalku waa ka imtixaaman yihiin ilaahay imtixaamada adduunka ka jira si uu nooga badbaadiyo sakariyo u naxariisan hooyo walba iyo aabbo walba oo maanta i daawanayo qof walba oo maanta muslim oo naxariis qalbigiisa ku jirto ha u wada naxariisana sakariyo إلا سكري وعافمات كيس كسو هلاية إلهي سبحانه وتعالى عافمات كبحية لكن أنه مسلم وإسلام ودين شاقنين سكري حوالات درتوت وصن عافمات كيس أوين إلهي بعافمات كبحية لكن أنا كده دالنا إن شاء الله ولكن ما عندنا العكتر بينهم كورجية ولكن يقولوا ورق العكتر جزاكم الله خير اسكنت تري إن شاء الله صح فضل شكتوي aad u mahadsantihiin gidigiin idinkoo ila joogayo idinkoona daawanayo meel kale joogaba gabdhahan walaalaha ee Soomaaliyeed aad bay mahadsan yihiin saan markii hore sheegay intii la soo xidhay bayaan lacag baan haynaa waxaan rabnaa inaad marxaati ka noqoto saantan ku wareejino guddoonto adigu aad saddex annagu waan ajibnay aniga Cabdixakiin Ilbuurum kaamira dibadda soo taagno duubaya oo ku hawlan waanu nimid ilaahay ha barakeeyo qof kasta meesha waxa la yiri ducadu waxay ku dhamaataa aakhiriya adduunkaba wax san ilaahay ku sii ducadu dhantaas ku dhamaataa marka آخرية دونك واحد سن إلهي هذه سيو قف كستعمل شو كل ولسين ولا كل إلهي كدول غاضو ليش شو كفر حسين إلهي والله مقال غير له أنت ولا كسر وساتكين يا وحسين قبل أحد شوكته وين ساتكين رجال مثلي ساعة
laakiin wala inuu qiiro leeyahay baan hubaa waa laba jir buu leegyahay laba jirka ka culus uu urusan yahay xubnihii baa kogay adigu curadkaaga dee hadduu moogtay madaxa kuu salaaxayo oo marba meel ku geynaya dee iyada halkaas uu yaallaa oo hooyo Soomaaliyeed inaan u gurmano waa midina saaran ilaahay baa caafimaadka bixiya ducadana nagu horreysiino muuqaalka la sii wadaagna saaxiibadeena kale qof kasta waxaad awoodo ha ka akrani Soomaali wadada ay wanaagsan oo way gurmadaan qofka xanuunsanaya iyo qofka baahidu hayso iyaga waxa isugu darsaday baahi iyo xanuun laakiin lambarkow waxa ka lambarkow waxa ka haddii kurba ku qabato waad kurba de moogta wax la kurbooto waad garab heshid walaalku ka baaya laakiin haddaad garab weydo waa xanuun kale garab la'aan baa ku dhacday walaal baa moogta saa ka dhigay sakriye hooyadii marka saaxiibayaal anaan kala qaadqaaday gidigiin waxaan leenahay inuu gurmano cidii muuqaalkii labaad ee kan ka horreeyay daawatay lacag fara badan bay aniga u soo direen hooyana lacag badan bay u soo direen waa Seynele waxaan rabnaa inaan si guud mar kale iyo muuqaal kale ku kulano haddii Rabbi suuro geliyo waliba kuma wareejin anigu oo dad baan wali sugaya xilligan ku wareejinayna dee anuun baa ogo waa u imaanaya laakiin qof kasta lacagta soo dirsta waan hayaa intaan soo totaliyan haddii Ilaahay ma u keenaya si guudna waa idin la hadlaynaa mar kalena waa idin ducaynaynaa waxaad leenahay idinkana akhriya adduunka waxsan gidiga Ilaahayna siiyo amiin وطاي داوديال مكسلا joogtaan markale waxa ay leeyahay rabbi raali hadin ka noqdo dhamaantiin lacagtii walaal Maryam ii dhiibtay gabdhahani keeneen iyo waliba qaar kale oo maqano soo dhiibtay yaaniga lagu wareejiyay baan rabaa inaan anigu lagu yadaa ka wakiila baan rabaa inaan moogtay ku wareejiyo hooyo Seynab oo hooyada dhashay Sakriye oo hooyadan ka soo sheekaynay oo hooyada intii hore daawatay garanayso inta hadda ku cusub muuqaalkan ay ugu horeysana waa hooyada wiilkan halkan jiifa dhashay oo curadkeedii waxaan usanayaa saas sirtu saaran yahay saad muuqaalka ku aragtaan de xubnaha Ilaahay soo ururiyay waxa dabaysha leeyahay baa ku dhacay isagoo yar oo laba jira say muuqaalka hore ugu qantay hooyo oo gudoon lacag ka gudoon gabdhaha okay waxna soomaa gabdhaha walaalaha ee wax maqan iyo wax joogaba waa ka gudoomay lacagtaas ay noogu soo gurmadeen assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wax ila jooga iyo wax maqan basalaanta islaamka 14 iyo boqolkan idinku salaamay salaanka bacdi Allah qafuur raxiim kaasad noogu soo gurmateen idinku gurmado qof walba meesha uu ka dhiban yahay ha uga dhibdhaamo wax walba qof walba meesha uu ka dhibaataysan yahay Allah uga dhibdhaamo kii xanuunsan Allah xanuunka ka qaado kii dhasha Allah siiyo kii xilaha isku xiyeen xilaha Allah u hagaajiyo kii xilala mid naqsaro oo wanaagsan Allah siiyo sida ay nagu soo gurmadeen Allah ugu gurmado caafimaad iyo afiba Allah siiyo jidka siraaqo dhibaatada badan Allah say nagu soo gurmadeen ha uga fududeeyo dhibaatooyinka laga sheegayo midka adduunkana Allah uga xijaabo sharka adduunka ka dhacaayana Allah uga xijaabo amiin annagana waa noo soo gurmadeen sida ay nagu soo gurmadeen Allah ugu gurmado lacagtaas annaga dhibkan ay nagu keeneen annagana Allah noo tayasiiro hana siiyo muraadka aan ku rabno mar walaalayaal mar labaad way salaamaya 14 iyo boqolka diinta islaamka idinku salaamaya walaashay Maryam lacagtaas way noo keentay iyo walaal gar marka mar labaad assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qof walbana meesha uu ka dhiban yahay Allah uga dhibdhaama aakhira iyo adduunba kii dhasha Allah siiyo kii buka caafimaad Allah siiyo kay xilaha isku dhibaataysan xilaha Allah isu sakhiro kii xilala sakhiran oo khayr qaba Allah siiyo midii ilma ka xanuunsan yihiin Allah u caafiyo midii haysata baari Allah uga dhigo ilaaha qafuur raxiimka wax bixiyo qof walba meeshu ka dhiban yahay uga dhibdhaam aakhira iyo adduunba assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u maasantahay Ilaahay waa aqbalo telefoonada muuqaal ku qoran midna ana iskale midna hooyo Seynab baa iskale labadaba nagala soo xiriiri kartaan waxaan kaga ugu qoray inta badan telefoonkeeda kama war hayso anuguna dad wixii leeyahay soo dhiibo Ilaahay ma ka gaadhay taajir baan Ilaahay kaga dalbanaya waan u keenayaa lacag fara badan oo la soo diray anu hayana way jirtaa mid hore aan gudoonsiyay way jirtaa gurbadkuna meel dhaxo inoo maraya saaxiibayaal ka soo qayb qaata qof kasta waxaad bixin karto ku baxso ducadu moogtay wax meel maran maaha ducadu hadaa si qofkan u ducay xanuunsanaya in Ilaahay aqbal idin kale adigu warmaysid inaad ducaysid baa muhiim ah waxaad ilaahay saaxiibayaal assalaamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.